xildhibaanadu dhashay beesha Mariixaan waxa uu roonaa oo ugu macquulsanaa cabshir ciyaar jecel xildhibaan cabshir ciyaar jecel cabshir jaamac laakiin muxuu leeyahay odaga dharkii uu soo dhigtay baashi qabyaaladaheed ayuu miisayaa waxaad moodaa qayladhaanta laga hadlaayo baarlamaanka wuxuu nasiib u leeyahay macallinkii qayladhaanta ama kabiirkii masiibooyin hadday jiraan dalka iyadoo aan dawladu jirin ka hadli jiray marka in fursadahaas aad ka faa'iidaystaan oo runtii marka xaaladahan laga hadlaayo aad micnaha ii yeertaanoo si gaara arrimahaas ayay ahayd laakiin ma dhicinoo haddee wow abshir wuxuu leeyahay ba farmaajo ka hor dawlad ma jirinba siyaad baray farmaajo dhexdooda dawlad ma jirin oo kaale abshir oo saaxiib dawladda Sheekh Shariif maxay ahayd dawlad ma ahayn miya تيحس الشيخنا ها ومعقول إذا الدولة ما هي سوى الدولة فلاك حشة صبتوا واحد على نابه هسيه قيلاني وحي ولا جوجي حال بوندو الشيكو قبيالد مريحاني السماء كقر ديوانك waxaan idin sheegayaa shalay inaan ka mid noqday fursad u helay wafdi uu hogaaminayay prime minister ku-xigeenku ee tagay gobolada Gado أنا قدو حانو هستين تهال قبل نتاي صاحبك أبشر يقول لك قبل هذا قدو ما أفكو بدنيا أو ما يجيب كيا قبل قدو أو نقض قبل الله دار قبل نقضي والله يا وين قبل كبيش يصدق تمني حانك بين لبضنا دار قبل أول نقض قلبيا أوكي يا كوفو قال ساعكي يا كوفو قال ساعكي بليس runtii fursad bay yahay ku talagal ma jirin laakiin adigu waxaan nasiib u yeeshay inaan dadka ka mid noqdo waxaanu tagnay Baardheere magaalada Doolow iyo Luuq waxaan soo aragnay wax indhihiinu iyo aqligiinu diidayaan waxaanu soo aragnay daadad ka yimid buuraha webigii Jubba iyo kii Doolow oo isku daray saameyn weyn ku yeeshay yanaha goobihii dadku ay deganayeen waxaan kaloo indhahayga ku soo arkay deegaan ka hooseeya dhinaca horumarka deegaanada Soomaaliya gobolka Gado waxaan isleeyahay oo lagu tiriyay inuu yahay gobolka ugu kheyraadka badan ee Soomaaliya haddii laga howlgalo waxa nasiib darraan isleeyahay uu sababsaday horumar la'aanta maamuladii soo maray gaar ahaan maamulkii inta badan dadku ay yiraahdaan maamulkii lagu diirsaday xukunkii kacaanka ahaa ee qabsaday dalka maamul gobolka isaga waxa uu uga tagay jid la'aan iskuul la'aan waxaad moodaa inaad joogtid 1880kii sida ay u dhisan yihiin tana ka daran baya qofka hadlaya ma cabdi shariiciyaar jecel xildhibaanka saaxiibkay ahaaya maswaanin warluda oo qabyaalad dilootay maxaa tiri maxamed siyaad bare kacaankii la mahdiyay oo yaa mahdiyay kacaankan maxamed siyaad bare ninkii saaqalaayo wahaa ninkii hawiyaha dhameeyo wahaa ninkii mujaahideen dhameeyo wahaa ninkii Soomaali barkeed dhameeyo wahaa ninkii cudur Soomaaliyeed dilayo wahaa ninka saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ku booliiska laayo ahaa ninkii wuxuu ahaa hantii shacabka lahaa qabiilkiisa siinay qabyaalad awgeed muxuu qabtay maxamed siyaad bare oo lagu mahdiyay kacaankiis oo dil iyo xasuuq ahay waad ogeyn intuu Soomaali iska dhaafay South Africa isaga u soo kireystay diyaarada ku garaacay diyaarado waad ogeyn hawii tuulooyinkoodii iyo ceelashooda inuu gubay dadkoodii la wax garadkoodii waad ogeyn majarteeso u galay waad ogeyn dalku wuxuu u horseeday kooxda sare oo doorasho u diiday dimuqraadiyadda oo aasay kooxda asasan nin qol caalad ku maamulay leeyniga shacabka ee doorasho dal inta ka dhacay intuu inqilaab ku qabsaday dimuqraadiyadda la laabay meel ku liday miyaa la mahdiyay cabdiyo muxuu siyaad bar qabta ma hal garoon buu dhisay ma wado dhisay muxuu sameeyay ma dekad buu dhisay dekadaha naga shisheeya noo dhisay wadooyinkan Jeenaysa iyo Ruushka noo dhisay استاديو كون استاد مقشوان حصا كاتوي تكدن بربرة متقنا دولش شيء نادسي
muqdisho doorashada oo dhistay maxamed siyaad barre lacagta oo shacabka ka qaadaya canshuurta lacag dalkan ka soo gelaysa halkuu mariyay dababaadku sheeno keenay qoryaha sheeno keenay wuxuu dilay mooy siyaad barre lacagtii dalkan oo ka qabtay cabdi xageegeeyay ogeeyay qabiilkiisu siiyay oo qura cabdi xoosho kale ayuu qaranka dhan u dhantaaray marka استغفر الله استغفر كعانك اللهم mahadin adiguna waxaan ku leeyahay qabyaalada Allah ka daweeyo habq laysa abshow idinka xildhibaano waa cid u maqan ma jirto mar raba inaan micnaha ku fogaado oo runtii waxaan shalay soo arkay geerida iyo dhibaatada iyo biyaha dadku saameeyeen waxa dhacday xataa in la isku dayay tagitaankii aanu tagi lahayn in jidgooyo loo dhigto oo runtii dad u baahan dalka in laga xoreeyo ay isku dayaan wuxuu yiri jubbooyinka waxa ka arbanay maamul mudan in xil hor loo kaco oo deegaanka laga xoreeyo maxamedow kala jeeda maxamedow laakiin reerka maryaxaanka leeyahay hore isku dayeen meesha xoreeyo weyn awoodoodu baabadasa barre hiilaal waagoodu ku dagaalamay barre waa la soo eriyay laakiin luqadaas oo ku hadlay mid yar oo ka fiican aan ku hadlay adaaniga isaga aan lahaa sababta dadka Soomaali way gobolkeena degan yihiin marka ogaadeen laga ma saari karo gobolka jubbooyinkii la xoog looga ma saari karo laakiin hal falsafada jirto oo qaano ah dadka siyaasiyiinta iyo dadka kale shacabka ah maryaxaanka majority-gooda 80% waxay yaqaan sida dadka loo caayo sida dadka loo dulmiyo sida dadka qofka iyaga ka dhashay ee hoggaanka haya dadka loo nacsiyo tusaale maxamed siyaad barre markuu joogo maryaxaanka dadka dhan bay caayin jireen dadka dhan bay ku taxafir jireen awoodda madaxweynaha ay isku jireen laakiin nasiib darro markii siyaad barre jabhadu ay la dagaaleen shacabka qabiilada ku kaceen way difaaci kari waayeen xiriyaha qaxootiga galeen barre hiilaal saasoo kale markuu joogay dadka saas u dhibaayeen barre markii hadda la soo mataqaana axmedow iskaleena axmedow ogaadeen ku difaaceen way u dagaalameen way garab istaageen laakiin barre maryaxaan way difaaci kari waayeen shalay maryaxaanku markii qaxeen xiriyaha qaxootiga Kenya xiriyaha qaxootiga Itoobiya labadu waa galeen ogaadeen ku soo dhaweeyay laakiin maanta hadii ogaadeen kala dagaaleen naftoodi hawiye soo xumeeyeen waxa ay farmaajo u falay mujarteenkii la xumeeyay waxa aragtay adwiligaasi buldan ku hadlayso hadii ogaadeen kii abshir u leeyahay in laga xoreeyo u baahan yihiin gobolka waxa is weydiiyay reerka duuqa xumaanta halku u qaxaya abshir waa saaxiibku fogaa ma laakiin waxaan dhilahay abshir wax meesha ka socda ognaha qabyaalada in wax bartay aqoon leh tartiibkaaga ayar oo degmo walba councilman ay isu doorato mayorka hadda maalin la soo magacaabayo hadda nin cusub la soo magacaabay laba bari ka hor waxay ahayd magaaladu waa nabad in mayorka la doorto ma aha in magacaabid ay dhacdo marka taasa waxay ku muujinaysaa in ay dawladdu runtii markay noqoto dhanka qof iyo codkiisa iyadu afkeeda ka qiratay ka gaabisay baad leedahay inay ku fashilantay oo ay ka gaabisay waxyaabaha ugu yaabka badan waxay tahay runtii madaxweyne iyo prime minister iyo gudoomiye baarlamaan oo dalkii hal mar ka wada maqan wasiirkii gaashaandhigga wasiirka arrimaha gudaha wasiiradii oo dhan iyo madaxweynihii iyo madaxweyne prime ministerkii iyo gudoomiye baarlamaan hal mar inay dibadda ka wada maqan yihiin dalkii oo dal madaxdii loo doortay ay dibadda ku maqan yihiin yaa u maamulaya shacabka maanta marka waxa laga rabo waxa waaye intii hore ahayd in mar walba erayada qofka nasaqraamiso ama na hurdisiiso taas inaan ka korno oo mar walbana aan isweydiino shakhsiga hadlaayo iyo erayada uu leeyahay iyo camalkiisa ma iswaafaqsan yihiin hadday jawaabta haa tahayna qofkaas hala taageero oo lagu taageero camalkiisa asigii ilaahay ka dhaxaysaa wixii warkiisa ku jiray wuxuu qalbiga ku qarsanay
laakiin marba hadday isdiidayaan labadii shay dan waxaana mas-uul annagana saaran waajibkana saaran waxa waa inaan qofkaas ku diidno inaanu ku saacidin meesha uu noo wada iyo waxa uu noo wada Soomaaliya maanta waxay u baahan tahay dib u heshiisiin dhab ay u baahan tahay